halkan waa xarunta cusub ee Daarul Quraan waxaana quraan lagu saaraa waa dadka xanuunsan kuwa la sixro kuwa jinka qaba iyo wixii la mid ah waxaana laga furay gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed Isnaybiyaaso xarunta cilaajka quraan saarka iyo isku daweynta ee Daarul Quraan ayaa si wada howlihiisa shaqo waxaana cilaajkan quraan saarka iyo isku daweynta ee Daarul Quraan laga furay gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed ku dhawaad in ka badan 30 dumar ayaa maanta loogu bixiyay jinka iyo sixirka waa kuwan qaar ka mid ah dadka la daaweynayay maxaad ku maagtaan guriga gabaruriya saddex baad heedeen haye yaa baxay laba baxday labadu baxdo maxay ahayd maxay ahaayeen labadu baxduriya musliyo ishini bay ahaayeen adigu maxaa ku reebay maxaa ku reebay wariya maxaa ku reebaan ku reebaya gadkiisa gabadha soo matigiisa wariya gadkiisa wariya soo raaganta dhaqso soo raaganta wariya dhaqso wariya soo raaganta dhaqso wariya gacanta ma soo raacaysa wariya soo raaganta dhaqso gaar wariya shana shadaanka meeshan waxaan keenay koow gabadheedu xanuunsan haddana aniga yaab hadan xanuunkeyga si bad gabadh istaalta waageeyay waa ku daalay intaan keenay alxamdulillah hadda way caafimaadday quraan saarka ayadoo ku bilaawday kadib aniga xanuunsaday anigina alxamdulillah ma hadda ilaaha iska leh ka sokoone macallinkeena iska leh way ugu dadaalay gurigeyga wax asaga hadda ii sheegay guriga waxa ka soo bixisay ummadda dhan waa isku imaadeen waa la wada arkay alxamdulillah sidii hore waa dhama alxamdulillah ma hadda Allah iska leh sixirka loo sameeyay wax la soo bixiyay waay oo guriga la dhigay sariirta madaxeeda iyo irida la dhahay ka soo bixisay la dhahay waxa ugu baaqaya ninka xanuunsan ama isbitaal meelaas ahada in meeshan horta ko isku daabiyo caafimaadkiisa markaas oo ogaana insha Allah quraanka wax ka weyn ma lahan dhinaca kale maamulaha cilaajka quraan saarka iyo isku daweynta ee Daarul Quraan Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo loo yaqaan macallin daadir ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada imanka ka socota xarunta weyn ee magaalada Jowhar asiguna tilmaamay bulshada Soomaaliyeed loogu baahan yahay inay isku daaweeyaan quraanka kariimka Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iska leh Allaha oo waaga inoo berisiyay anagoo caafimaad qabna haddana ah dad muslimiin ah alxamdulillah walaalaha caalamka ku nool ee muslimiinta ama gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan nawaaxigeeda waxaan ogeysiinaynaa xaruntan Ilaahay tabaaraka wa tacaala baana garisiiyay waxa ujeedadaan u furno waxay tahay dhibaatada ummadda muslimiinta maanta haysto rag iyo dumarba waxa ay tahay waa il waa jin waa xasid waa sixir ummaddu waxay la dhiban yihiin isbitaalada la tagayaan ee la dhibaataysan yihiin waxa arkaysa dad badan oo aad u xanuunsan ee ka cawanaya xanuunyo fara badan haddana loogu soo daalay isbitaalada haddana kula imaanaya ku dhahaya sheekhu sida baa leehaya xanuunka baa yahayo sida baa yahayo isbitaal waan soo daalay xaqiiqatan wax waliba horta shifadeeda wuxuu ku jiraa quraanka Ilaahay tabaaraka wa tacaala baa quraankiisa ku sheegay wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara quraanku waa shifo wuxuuna shifo u yahay ummadan buu shifo u yahay ee muslimiinta ah Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan kaga mahad celinaynaa ee na garasiiyay inaan ummadda quraanka saarno oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala oo caafimaad ku siiyo xaqiiqatan magaaladan aad arkaysaan markaan bilaabnay hawsha halkan laba biri markay socotay hawsha waxa dhacday haweeney halka ku xanuunsatay ee 4 sano xanuunsaneed inaan raaco oo gurigeedan ugu tago ee kadibna aan ka soo saarna sixirkan wuxuu ugu jiray sariirta la jiifanayo madaxeeda iyo wuxuu ugu jiray iridda laga galayo ay ugu jiray haddana way ka caafimaadeen alxamdulillah halkan bayna ku sugan yihiin dadkii caafimaadayna halkan bay joogaan insha Allah wadna arki doontaan wadna ka qanci doontaan insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Yusni Maxamed Axmed Bulsha TV magaalada Jowhar